waxay ka dhacday meel 25 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda argagixisada ah ee Daacish madaxdoodu waana goobta uu ku nool yahay xilligan ciidamada reerihiisa ka koobanna uu ku aroorsanayo ama uu ku aruursanayo ninka loo yaqaano ina faahiye sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidanka difaaca Puntland oo uga digay in dhalinyarada jifidiisa hoose ah uu dabka ku guro waxaana duqeyntan ku geeriyooday sida la sheegay hadda dad shacab ah oo la sheegay inay yihiin xoolo dhaqato iyadoo duqeyntan ay fuliyeen diyaaradaha Imaaraadku waan dul istaagi doonaa xaaladda dhabta ah ee xilligan la soo warinayo waa 11 March maalinimo Talaado ah sanadka 2025 maxaa xilligan dadka shacabka ah dhigay meesha ay joogaan markaasina ay ku sugan yihiin madaxda sare ee Daacish ma shacabka ayaa qaldan mise diyaaradaha howlgallada fulinaya ayaa qaldan barnaamijkan ayaan arintaasi ku dul istaagi doonaa wiilkan dhalinyarada ah ayaa kamid dadka duqeymaha ku dhintay oo loo yaqaano Orshe sawirkiisuna idin muuqdo wuxuuna kamid ahaa dadkii caaway ku geeriyooday duqeymihii diyaaradaha Imaaraadku ay halkaasi ka geysteen horeyna waan uga digay haddana mar kale ayaan ku celinayaa iyo halka uu xaal marayo oo ayna la wadaagi doonaan askar ka tirsan ciidanka difaaca Puntland kuwaas oo markaasi weerar dhabagal iyo sidoo kale markaasi ah raacdayn ay ku wadaan kooxda argagixisada ee Daacish muqaalkii ugu dambeeyay aan Daacish idin kula wadaagay wuxuu ahaa inaan idin sheegay in Daacish ay ku jiraan saddex xagalkan dhimashada waa Miiraale qaybta dusha sare ee Togayna Cidoode iyo sidoo kale ceelka Wangable iyadoo ay tahay saddex xagal sida maabka idin kaga muuqata caawa waxa la duqeeyay goobta uu ciidamada reerkiisa ama jufidiisa hoose ah uu ku aruursanayo ina faahiye oo ka soo jeedo beesha dashiisa reer ahaan waxayna magaalada Boosaaso u jirtaa 25 kilomitir oo kaliya waana meesha ay Daacish ka soo abaabuleen raggii galay jeelka Boosaaso 2021 iyagoo xilligaasi sii daayay 300 oo maxaabiis ah waa 25 kilomitir oo kaliya ayay halkan u jirtaa Daacish magaalada Boosaaso goobtan waxa ay ku diyaariyeen cusbitaal gaar ah oo qalabaysan kaas oo loogu talagalay marka ay weerarka ku qaadaan magaalada Boosaaso in halkan dhaawacyadooda ay ku dabiibtaan balse qorshayaasha ay damacsanaayeen waxa ka hortagay ciidamada difaaca Puntland ee geesiyaasha ah intaan idin la wadaagin xogta diyaaradaha dhamaantii muuqaalka la gareeyo shargareeya YouTube-kana ku soo biira aad baad u mahadsantiin ila arka mid ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo banaanka keenaya xog iyo macluumaad yaab leh halka iminka uu xaal amarayo waxaan burburinay oo baabiinay talisidii ugu weynaa ee Daacish ay ciidamada ku barajireen waxaan ku sameynay waa ku tir yacag marin فرحتنا تعيد كذا تاجن إن شاء الله بإذن الله كريم كهر ماينو وسوق قبائلنا وحيا قبوينا ودلينا باكر إن شاء الله بإذن الله عم بلا لوغني يا بابا وعم بلا لوغني داعش والله وصي أيوه إن شاء الله إن شاء الله وقلت قدام يسكن وقمنا إذا كدولة يا قام كله وريجي قوة بدنا قام بنصوم برنا سد عادي جا مركز هقول كواس على سد عادي جا إن شاء الله بإذن الله كريم باقي قهرنا ويدي كير دونا إنا مؤمننا ماذا حسابنا كبر أو يسنا السباكم ماذا حساب أنت هرا كسرنا باكم أنت ماذا حنا قلنا كينا باكم سد عادي عادي وحرمنا إنه كنت سارقة تقف دنبور بدل إنه دلك يسوسهر كعش شيء أما خاي ودر ونقضه خاي ودر كنا غابتي سوى دل يبدأ قوي وحكلا أو هاي نانو متجنا باكم أديات duqeymahan ayaa ka dhacay Toga Miiraale sida aad u jeedaan maabku waa halkaas goobta ay duqeymaha ka dhacayaan waa Miiraale waa magaalo madaxda Daacish ee labaad waa halka uu ku sugan yahay amiir ku-xigeenka kooxdu ama shaydaanka kooxdan ku-xigeenka ka ah waa halka lagu diyaarinayo rag badan oo dadka deegaanka ah kuwaas oo uu qortay ina faahiye isaga oo raba inuu qabiil ahaan markaas raggan ay u difaacaan sida oo kalena waa goobta ina faahiye uu halkaani ku diyaarsanayo maleeshiyaad reerihiisa ama jufidiisa hoose ah sida uu sheegay taliyaha ciidanka difaaca Puntland xog ururin ay sameeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka difaaca Puntland waxa ay ku ogaadeen in ina faahiye uu dadkii
deegaanka ee ereyadan ka dhowaa uu ku qasbay in ay halkan yimaadaan si uu isugu dhufto Puntland iyo sidoo kale qabiilka reerahaasi ama reerihiisu ay yihiin isagoo markaasina yiri waxaanu rabnaa inaanu ku noolaano goobta ay dadku joogaan oo hadday dadku naga guuraan duqeymuhu annagayna haleelayaane waa in halkan ay qasab ku yimaadaan qoysaska xoolo dhaqatada ah xog ururin la sameeyay waxa la soo ogaaday in maqribnimadii caawi halkan ay joogeen saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Daesh diyaaraduhuna sidaasi ayay u duqeeyeen balse duqeymaha qayb ayaa markaasi laayay shacab markaasi halkan ku sugnaa inta la xaqiijiyay 3 ruux ayaa geeriyootay sidoo kalena qasaaraha guud ee meeshan ka dhashay waxa lagu dilay 5 kamid ah argagixisada oo la sheegay inay ahaayeen saraakiil sarsare kuwaas oo kooxdan argagixisada ah hawlo shaqo oo muhiim ah u qaabilsanaa sida diyaarinta qaraxyo ay doonayeen in ay ku weeraraan magaalada Boosaaso maadaama meeshan ay 25 kiiloomitir oo kaliya u jirto magaalada Boosaaso haddaba ina faahiye waa ninka maskaxda Daesh dajiyay ah in aan la weerarin magaalooyinka weyn ee Puntland in aan la weerarin xeryaha ciidamada difaaca Puntland ee Daesh dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo tiknoolajiyad ahaanba ay diyaariyaan oo ay koraan 2025 dhamaadkeeda 2026 bilowgeedana guud ahaanba Puntland gacanta lagu dhigo waa nin assassination badan oo qatar ah sidoo kalena jiroole ah wuxuuna hadda rabaa inuu isku dhufto qabaa'ilka uu ka soo jeedo iyo dawladda Puntland isagoo markaasina xoqanaya kaar victim ah oo qabiilnimo uu leeyahay dad shacab ayaa la laayay haddaba waxa isweydiin mudan yaa qaldan dawladda Puntland diyaaradaha duqeymaha geysanaya ee amartay iyo shacabka xaqiiqdii gar waa loo wada islaam imaaraad waxaan ahaa anigu ninkii dhaliilayay ee lahaa imaaraadku daacad kama ahan duqeymaha anigu ahaa ninkii dhaliilayay imaaraadku duqeymaha Daesh markaas loo geysanayo daacad kama ahan maantayna waxaan ahay nin kale shacabka ayaa qaldan waayo shilib dadka jooga oo dhan waa argagixiso caawi hadii daacad laga yahay in la dagaalamo kulli waa la rushaynayaa oo waa la dilayaa waayo magaalada 30 sano gacanta Soomaaliya way ka baxsanayd madaxdii Daesh madaxdii shabaab baa ku sugan madaxdii argagixisada ku sugan dadka halkaas ku sugan oo dhan waa la laynayaa sababta waxa weeye waa hooy argagixiso miiraale waxay la mid tahay jilib oo kale cusbitaal ay ka dhisteen wax kasta ay ka dhisteen dadka jooga iyo dadka ku nool kulli waa in la laayo hadii faraha laga qaado maxaa dhalanaya in argagixisadii sida koonfurta looga saari waayo oo kale ay dhacdo oo ay dadka ku dhexmilmaan naagihii guursadaan isfidiyaan hadhowna ay dhacdo sida ka dhacday shabeelooyinka wiil shabaab ah odayga iyo macawislay ah iyo habarta iyo ciidanka xoogga dalka ka tirsan wiilkiina waa shabaab gabadhii waa macawislay odaygii waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laba walaalaha midna shabaab ka tirsan yahay midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan yahay taasaa dhici doonta marka sababtan u yiri weeye geedka caleemihiisa lama jare jiridiisa lama jare xididada la siibaa geed jiridiisa maanta dhan jaraysid oo aadan xididka u siibin waxa kuma suurtagelayaan waayo halkan waa meesha ina faahiye uu yiri halkaan aynu dumarka ku guursanaynaa halkaan aan qabiilada ma taqaanay aan ku tarmaynaa halkaan aan isku tarminaynaa hadhowna waxa meesha ka soo baxay sida shabaabka koonfurta kula wareegeen oo dhan qabiiladan oo argagixisadii ah waxaana dhacaysa hadhow in la dhaho meel heblaaye ama ceelbuur lama duqeyn karo islaan ayadii ah baa joogtay meel heblaaye ceelbuur lama duqeyn karo islaan habaryartay ah baa joogtay in la dhaho baa dhici karta waa hadhow waa mustaqbalka sida hadda haysato kale markay maantay inay inaga dhintaan dad ay ku osgabanayeen Daesh waxay budnig u tahay ama hordhac u tahay in Daesh halkaan aysan markaasi ku tarmin oo ina faahiye aragtida wata aysan ku tarmin salkana laga gooyay waxaana ma taqaan haddaan la duqeyn dhici doonta in maalin ay adkaan doonto in xildhibaan ka soo baxay deegaankan hooyadiis walaashiis iyo adeerkiis ay Daesh haysato sida shabaab ay u haystaan Jeesow iyo xildhibaanada murursada iyo gaal jecel iyo xawaale aandhe iyo abgaal ee shabaabku deegaanadooda haystaan inay dhacdo in la dhaho meel hebla lama duqeyn karo hooyaday baa degan waana shabaabkii marka qalad gar waa loo wada islaam waxa qalad kale dadka deegaanka waa loogaa inuu ina faahiye joogo waa loogaa inay miiraal argagixisada hooy u tahay maxaa xilligan dhigay maxaa dadka shacabka xilligan meesha dhigay may ka fogaadaan dagaal inuu ka socdo way ogyihiin maxaa dhigay gar waa loo wada islaam ilmaada rayaal duqeymaha imaaraadku markaanu dhaliilanay waxaanu ku haysanay evidence cad
meelo ay duqeeyeen lama hayn cadaymo lama hayn heer maalintii dambe saanu ugu wadnay dhaliisha ay bilaabeen inay maalinimo duqeeyaan oo ka takhalusaan cadowga ay bilaabeen sida gaatir oodan shabaab ay u qarxiyeen oo kale maalinimo ay u weerareen oo ay u duqeeyeen marka waxa weeye arrintu ama xalku waxa weeye warni meeshan dadka degan waa la yaqaanaa war nimankaas dashiishow dadkiina la hadla war xildhibaanada dashiishow ku sugan mataqaanaa baarlamaanka Puntland ku jirow gudoomiyaha gobolka Bariyow duqa magaalada Boosaasow xildhibaanow golo deegaanow odayaal dhaqanow cuqaalow hadalkii taliyaha ciidanka difaaca Puntland markii uu lahaa intaasu ka digay dad badan baa maalintii qabiil la qaatay aniguna waxaan ka digaynaa waa intaas waayo waxaan ognahay wax bilaabanaya waxaan ognahay waxa soo imaan doona hadalka taliyaha hadda ma lahaya hadalkii taliyuhu ka digay ee lahaa ina faahiyow reerkaaga hoos iyo jifidaada hoos adabka ka guuraysid jooji ma lahaya hadda markii taliyaha la qaato ilaa markii qabiil baa lagu shaabaday taliyaha reer hebel weeye saan weeye baa lagu shaabaday hadda yaan la baruuran qof kastoo reerkaaga iyo deegaankaaga kala soo bax waxaanu ka baqaynaa anigu maxaan la walwalsanahay inay meeshan hadhow noqoto sida ceel buur oo kale sida mataqaanaa yiisha abgaal ugu dhexmilmay shabaab oo kale sida raxan weyn ay ugu dhexmilantay shabaab oo kale sida jubooyinka dadka jooga ay ugu dhexmilmeen shabaab oo kale sida reer jeeb shabaab ugu dhexmilmeen baan ka baqaya aniga iimkaygu waa intaas iimka aniga aan ka fikirayo iyo cabsida ay haysa ma ahan hadda waa mustaqbalka hal qof kasto waa inuu dadkiisa kala soo baxo intaasaan ku soo kufinayaa wabillahi tawfiiq